kusoo dhawow layaabka dunida. Assalaamu calaykum, magacaygu waa Muuse, YouTube ka daawanaysan waa Muuse Ismaaciil. Fadlan hadaa YouTube channel-ka ku cusub tahay way tahay daawashadaadii koowaad. Waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe garayso gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya. Waa ku mahadsan tahay kamid noqoshada channel-keena. Waxaa ku leenahay soo dhawow. Layaabka dunida waxaa ku soo qaadan doonaa gabar ayaa indho la'aan ku dhacday kadib marka ay tattoo ku sawiratay gudaha indhaheeda. Gabadhan oo la yiraahdo Amber Look oo 24 sano jir ah oo ka soo jeeda Australia ayaa waxa qalin uga baxday lacag dhan $15,525. Gabadhan waxay jirkeeda ku sawirtay 200 oo tattoo. Waxa qalin lagu sameeyay faruuraheeda iyo dhabanka. Sidoo kale waxa la dulduleeliyay dhagaheeda. laakiin waxa ugu dhib badnaa ugu xanuunka badnaa tattoo-gii lagu sawiray indhaheeda. xitaa gabadhan waxay qalin ku sameysay carabka oo loo kala dhigay 2 bar. gabadhan ayaa sheegtay inay raadinaysay quruxtii ugu dambeysay. mar walba markay u tagto asxaabteeda waxa la dhihi jiray ma qurxoonid waxa tahay gabar foolxun. sidaas darteed waxay isku sameysay qalino fara badan ilaa ay ka gaarto inay indhaheeda ku sawirto tattoo. hooyadii dhashay gabadhan oo la yiraahdo Kiki ayaa oohin lala aamusi kari waayay kadib markay ogaatay in gabadheedii yareed ay indho la'aan ku dhacday. sidoo kale hooyadeed oo tiri waxaan xoog saarayaa sidii gabadheeda uu araggeeda ugu soo laaban lahaa. runtii Amber Look waxay ku jirtaa xaalad adag. runtii sheekadan waa sheeko aad iyo aad u la yaab badan sababtoo ah dunida waxay maraysaa in indhaha tattoo lagu sawirto. araduna wax walba waad arkaysaa. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan aad waxaynu balnaa videoga xiga. bye bye.